Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga waa markii maxaa cusub arrimaha Bollywood-ka jilaaga Dilip Tahil ayaa daaha ka qaaday marka uu jilay filimka Qiyaamad se Qiyaamad in oo jiray da'da 30 Dilip Tahil ayaa filimkan ku matalaya doorka aabanimo asigoo u matalaya superstar-ka Aamir Khan asigoo ka hadlay filimkan Qiyaamad se Qiyaamad wuxuu Dilip Tahil sheegay asigii Aamir Khan in uu ka weynaayay 10 sano oo kaliya Aamir Khan filimkani ayaa soo baxay Qiyaamad se Qiyaamad 1988 marka uu jilay superstar-kan Aamir Khan filimkan Qiyaamad se Qiyaamad asigii iyo Dilip Tahil waxa u dhaxaysay 10 sano oo kaliya mar wax laga weydiiyay Dilip Tahil in uu booska aabanimo u matalo Aamir Khan sidee baad u aragtaa ayaa la yiri Dilip Tahil ayaa ku jawaabay wax dhibaato ah uma arkin marka aan jilay filimkan Qiyaamad se Qiyaamad inkasta oo adkeed jilayaasha waagaas jilay in ay qaataan doorka aabanimo laakiin aniga wax walwal ah uma arkin inaan u matalo superstar-ka Aamir Khan doorka aabanimo Deepika Padukone ayaa laga dareemayaa wajigeeda farxad ayadoo ku faraxsan ilmaha yar ee u dhalan doona Deepika Padukone labadan jilay Deepika Padukone iyo Ranveer Singh ayaa aad ugu faraxsan ilmahooda yar ee dhalan doona Deepika Padukone ayaa dhawaan soo socda filimkeeda cusbay Kalki ka ay la wado jilayaasha Amitabh Bachchan iyo Prabhu Deva macalinka Deepika Padukone ee yoogada Anushka Barwani ayaa shaaca ka qaaday siday ugu diyaar garowday jilayadan Deepika Padukone iyo siday ugu diyaar garowayso ilmaheeda yar ee dhalan doona ayadoo maalmaheeda wanaagsan aad ugu raaxaysanayso waxa kale oo daaha ka qaaday siday wax uga bedeshay howlaha yoogada ee jimicsiga asigoo la hadlaya NDTV Spencer Loster macalinka caanka ah ee Deepika Padukone wuxuu yiri hadda waa inaan u eegnaa waxay sidataa ilmo yar waa in aan ka taxadirnaa ayuu yiri macalinka Deepika Padukone taageerayaal fara badan ayaa iskugu soo baxay ayagoo u dabaaldegaya xidiga Vijay maadaama uu qanton dilsaday Sabtida ayayna u dabaaldegayaan taageerayaasha Vijay filimkan oo soo baxay God filimkan ayaa wuxuu xambaarsan yahay qasab abaal ah filimkan oo ah Tamil waxaa qoray oo director ka ah filim sameeyaha caanka Venkat Barbabu waxaa wax ka jilay Vijay oo hogaamiye ka ah Vijay ayaa filimkan ku jilaya laba door jilaaga Suuriya ayaa ka hadlay dhacdadii ka dhacday Tamil Nadu asigoo sheegay inuu aad aaga xun yahay dhacdada ka dhacday Tamil Nadu asigoo sheegay inuu ka xumaaday dhimashada ka dhacday Tamil Nadu wuxuu kaloo yiri qamriga aad ayuu u xun yahay dowladaha labadan bilin waxay keeneen mamnuucid Suuriya oo hadalkiisa sii wato wuxuu yiri dhacdada meesha ka dhacday waxay ahayd hal dhacdo waxayna u dhacday hal qaab ayadoo dhimashada halkay ka dhacday kala korji ay kor u kacday 48 jimcihii jilaaga Suuriya ayaa wuxuu ku eedeeyay dowladihii soo maray Tamil Nadu qabitaanka qamriga wuxuu kaloo ku sii baaqay in wax laga sii bedelo xaaladda amniga loona baahan yahay in wax laga dhacdadan ka dhacday Tamil Nadu ayuu yiri jilaagan Suuriya